بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ونكسن إذا لهانتين بأخيارتا نقول حلان هالكاني نقلا سعودو كسولو وادا بوغا ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar oo furo gambaleelka si aad markaas ula socoto dhacdooyinka iyo warbixinaha cusub ee soo gelino ku soo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijyadeena imtixaanaha ahaa ee dib u milicsiga sooyaalka taariikheed ee dawladihii ka jiray kayga Soomaalida barnaamijyadaas labadii qaybood hore aanu idinku soo gudbinay si gaar ah hadiirada ugu saarnay maamuladii ka dhisnaa منطقة الصومالية ودكتو كهور انتي آني قمستياشي رير يوروب قيبسانين اما آني قيبينين دبايا قدي قرنيقي سيجيديو توباناد مركي اي قارد افريكا قيبسادين قمستياشو iyo magacyadii ay markaasi u bixiyeen saddexdii gobol ee ay kala qabsadeen dawladihii Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaanigu waxaana labadii barnaamij ee horeba si qoto dheer aanu idinku bayaaminay in Somaliland iyo Soomaaliya oo ay inta badan Soomaalidu si u muuqata khalad faham ama inkiraad bareer ah ugu sheegaan inay ahaayeen dal qura Israaci 1960kii ka hor balse ay kala ahaayeen laba dawladood oo aanay wax dawladnimo ah iyo waliba deegaantoona ka dhaxaynin sidoo kale barnaamijku u dambeeyay waxaanu ku soo bandhignay magacyada boqortooyooyin qadiimi ahaa oo ka arrimin jiray dhulka Soomaaliland khariidaha ay lahaayeen iyo waliba madaxdii ka arrimin jirtay oo aanu qaarkood magacyadooda la wadaagnay waxa kale oo aanu idinku soo bandhignay magacyadii ay gumaystayaashu u yaqaaneen Somaliland, Djibouti iyo Soomaaliya oo ay qabsadeen dawladaha aynu kor ku xusnay qaybsigii qaaradda Afrika iyadoo aynu soo aragnay magacyadaasi iyo waliba khariidadihii ay kala lahaayeen goboladaasi barnaamijkana waxa aanu idinku soo gudbin doonaa sidii aanu idinku ballan qaadnay ama se aanu horeba idinku sheegnay barnaamijkii kan ka horreeyay tigidhadii boosaha iyo waliba lacagihii laga isticmaali jiray saddexdan dal taasoo aynu ku iftiiminayno inay Somaliland iyo Soomaaliya ahaayeen laba dal oo kala madax bannaan si la mid ah wadamadii kale ee ay mustacmaraduhu ka talinayeen xornimadii ka hor waxaana xusid mudan sida ilaa iminka jirta qaaradda Afrika iyo wadamo kale oo dunida ah dalalkii ay gumaysteen wadamada kale waxa isticmaalaan lacagihii ay markaasi u sameeyeen inkastoo ay jiraan wadamo iyagu samaystay lacago u gaar ah oo bedelay tii ay u sameeyeen mustacmarku sidoo kale inkastoo oo aynaan ku soo qaadan barnaamijyadeennii hore haddana waxaa xusid mudan in ururka midnimada Afrika sanadihii ay daruurta gobonimadu da'aysay uu go'aamiyey in sohdimaha ama xuduudaha dalalka qaaraddu ahaadaan sidii ay gumaystayaashu u xadeeyeen kaas oo ahaa go'aan inta badan ka dhaqan galay qaaradda wadamo badan oo dani ku kala jirayna ay ku kala badbaadeen dadkoodu haddaba Somaliland, Soomaaliya iyo Djibouti oo ahaa saddexdii gobol ee ay kala xukumayeen Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaanigu sidii aynu ku aragnay barnaamijkii hore waxa ay kala lahaayeen xuduudo dhuleed iyo magacyo kala gaar ah oo ay waliba dalalka reer Yurub mid walba luuqadiisa ugu yeeri jiray si taas la mid ah ayay u kala lahaayeen ama u kala duwanaayeen lacagaha iyo waliba dokumentiyada dawliga ah ee laga isticmaali jiray wadamadaasi waxaana saddexdan gobol mid walba laga isticmaali jiray lacag ka duwan kan kale oo gaar ah taas oo ay qaarkood kala mid ahaayeen wadamadii kale ee ay maxbiyaduhu wada xukumayeen waxaana hadii aynu mid u soo qaadano ay kala ahaayeen lacagihii iyo tigidhadii ay isticmaali jireen dalalkaasi dalka Djibouti oo uu xukumayay Faransiisku waxa laga isticmaali jiray lacagta faranka waana tan sawirkeedu idin muuqdo oo la oran jiray Cote Française de Somalie geesta kalena lacagta maroodu ku sawiran yahay waa lacagtii laga isticmaali jiray Soomaaliya ama gobolkii uu Talyaanigu gumaysanayay waxa ku qoran Soomaaliya iyo Roma lacagtuna waa tan idin muuqata oo qadaadiica waxaana ka horeysay lacag kale oo la oran jiray lira dhanka kale dhulkii boqortooyada Ingiriisku maamuleysay ee maxbiyada ahaa oo ah Jamhuuriyadda Somaliland waxa laga isticmaali jiray lacag shilin ah oo ay kala mid ahayd wadamadii kale ee bariga Afrika ee Ingiriisku gumaysanayay mana jirin lacag gaar ah oo isticmaalku ama maxbiyada Ingiriisku samaysay lacagtaasi shilinka ah oo la oran jiray East African shilling waxa ay ka dhaxaysay wadamadii ku yaallay bariga Afrika ee Ingiriisku markaasi maamulayay sida Kenya, Tanzania, Uganda iyo waliba wadamo kale oo la halmaala hadii aynu u nimaadno tigidhadii iyo waliba waraaqihii boosaha la isugu diri jiray oo iyaguna sida lacagaha iyo magacyada dalalku u kala gedisnaayeen ahaa waxay kala hayeen sida tani
tigirkan u horeeya waa mid ka mid ah tigidhadii Soomaaliya ee Talyaanigu xukumayay. waa kan waxa ku yaala Soomaaliya waxaana ku sawiran nin markaasi faras fuushan. nooca lacagtuna waxa uu ahaa lira. tigidhadanina waa kuwii uu isticmaali jiray maxbiyadii Ingiriisku ee boqortooyada Ingiriisku. lacagtu waxay ahayd senti. waxa ku sawiran gabadh. magaca Somaliland ayaa dhexda kaga qoran. geesta kale tigidhka saddexaadna waxa weeyaan kii uu isticmaali jiray Faransiisku ee markaasi lagu isticmaali jiray dhulka Djibouti. lacagtuna waxay ahayd faran. tigidhkana waxa ku qoran Code Française des Somalis. waana tigidhadii uu isticmaali jiray Faransiisku ee lagu isticmaali jiray dalka markaasi Djibouti ee ka mid ahaa saddexdii gobol ee dhulka Soomaalida loo kala qaybiyey. dhinaca kale haddii aynu dib ugu noqonno daawadayaal, kuwani waa lacagihii kala duwanaa ee lagu isticmaali jiray ama ay isticmaali jireen Soomaalidii ay xukumayeen mustacmaradihii reer Yurub. lacagtan waa shilin. waxa ku qoran Soomaaliya iyo weliba Roma. waana lacagtii uu markaasi isticmaali jiray Talyaanigu gobolkii uu maamulayay ee Soomaaliya. waxa ku xigtay iyaduna lacagtan faranka ah oo uu isticmaali jiray Faransiisku isla markaana lagu isticmaali jiray ama laga yaqaanay gobolka Djibouti ee markaasi Faransiisku haystay. waxa u dambeeya lacagtan East African shilling oo iyaduna ah tii uu isticmaali jiray Ingiriiska ama maxbiyadii Ingiriisku ay dhulka Somaliland keentay laga isticmaali jiray. haddaba iyadoo sidaas arrimuhu ay yihiin sidii aynu barnaamijyadii hore ku soo aragnay 1960kii markii ay xornimada qaateen Somaliland iyo Soomaaliya waxaa dhacay israac jibo iyo weliba qiyaame ku salaysnaa oo dhex maray labadii maamul ee Muqdisho iyo Hargeysa u gudoomiyay xorriyadda. israacaas oo sidii uu ku yimi waxyaabihii aasaaska u ahaa iyo khaladaadkii lagu sameeyeyba aynu kaga soo hadalnay barnaamijkii koowaad ee taxaraheenan, isla markaana dulucdiisu ahayd inay Soomaaliya ka baxday qodobadii heshiiska lagaga ahaa in lagu yagaleelo midnimada labada gobol kadib markii ay kursigii Jimciyadda Qaruumaha ka dhaxaysa ku codsatay magaca aan ahayn kii ay la bixi lahaayeen labada dal ee isu tagay marka ay dhamaystiraan israaca, kaasoo ahaa in uu noqdo Jamhuuriyadda Soomaali. hase ahaatee uu maamulkii Muqdisho ka dhigtay Soomaaliya, taasoo ay qaramada midoobay ka aqbashay, ayaa ahaa mid halkaasi bilowgiiba ka fashilmay. sababta uu u xagal daacayna ay mas'uuliyadiisa lahayd Soomaaliya. haddaba iyadoo israaca oo aan dhamaystirmin Soomaaliya ka baxday qodobkii ugu muhiimsanaa ee ay labada dhinac heshiiska ku ahaayeen, haddana dadka reer Somaliland waxa ay aqbaleen in aanay ku degdegin inay ka noqdaan go'aankii israaca, iyagoo taas ka doorbiday inuu guulaysan doono qorshihii lagu raadinayay xoreynta gobolladii ka maqnaa dhulka Soomaalida ee loo gacan geliyay dowladaha jaarka iyo gobolkii Faransiisku haystay oo ah Djibouti. miladaasoo iyaduna noqotay riyo lagu hungoobay. waxaana 30 sano oo ay labadii dal ee isu tagay waa Muqdisho iyo Hargeysa ay kala laalaadeen iyadoo oo aanu nidaam lagu wada qanacsan yahay oo dowladnimo ka dhismin. 1991kii ay Jamhuuriyadda Somaliland ku guulaystay in ay xornimadeeda la soo noqoto kadib halgan naf iyo maalba ay u hureen dadka reer Somaliland, kaasi oo ay u babacdhigeen dhaqdhaqaaqii SNM oo kaashanaya dadkoodu, halka ay Soomaaliya waqtigaasi qaaday wadada burburka ee aanay ilaa iminka ka soo kaban, isla markaana ku noqotay wadan fashilmay. waxa kale oo iyaduna xusid mudan tan iyo markii uu meesha ka baxay maamulkii dowladnimo ee ka dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya 1991kii, dhammaan dowladihii lagu soo dhisay shirarkii loo qabtay dib u soo celinta Soomaaliya waxa loo qabtay oo maamulo loogu yabyabay dhinaca Soomaaliya oo qula oo kooxihii ku hirdamayay marba meel lagu heshiisinayay. ha u horeysa dowladii uu hogaaminayay Ali Mahdi ee xamar lagaga dhawaaqay 1991kii oo ay sheegashadii dhismaheeda ahayd mid ku koobnayd Soomaaliya, markhaati labaadna u noqotay in aanay Somaliland iyo Soomaaliya waxba isugu jirin, isla markaana doonistii midnimadu ahayd mid ka bilaabantay kuna dhamaatay dhinaca Somaliland oo kaliya. waxa kale oo xaqiiqo ah barnaamijkan ka horeeyana aanu ku soo qaadanay in dhammaan shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee kala dambeeyay aan wax la tashi ah lagala yeelan Somaliland, jirina cid ku matalaysay oo rabitaanka dadka reer Somaliland loogu igmaday, isla markaana beesha caalamka iyo Soomaalida kale ay markaasi gogosha u fidisay. si kastaba ha ahaatee iyadoo oo xaalku uu sidaasi yahay, isla mar ahaantaana laga soo bilaabo 1991kii Somaliland iyo Soomaaliya kala noqdeen laba dowladood oo mid waliba xornimadeedii dib
u soo ceshatay. Si kastaba ha ahaatee iyada oo uu xaalku sidaasi yahay isla markaana laga soo bilaabo 1991kii Soomaaliland iyo Soomaaliya kala noqdeen laba dawladood oo mid waliba xornimadeedii dib u soo ceshatay. wadahadaladii ugu horeeyay ee ay yeeshaan waxa ay bilaabeen 2012kii xilligaasi wixii ka dambeeyay burburka Soomaaliya ay yeelatay dawlad rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn. wadahadalada labada dhinac oo tan iyo markii ay bilaabeen marxalado kala duwan soo maray laguna qabtay dalal kala duwan oo Ingiriisku ugu horeeyay. kulankii u dambeeyay waxa lagu qabtay dalka Djibouti taasoo ahayd markii labaad ee dalkaasi martigeliyo wadahadalada. haddaba inkasta oo ay dawladda Djibouti isu dhigaysay mid dhexdhexaad ka ah qadiyadaha labada dhinac oo daacad ka ah isku soo dhaweynta labada dal ee ay Soomaalinimadu ka dhaxayso, haddana waxaa jiray waxyaabo dhowr ah oo dood iyo shaki ku gadaamay madasha shirku ka dhacayay bishii Julaay ee sanadkani. shirkaasi oo qodobadii ka soo baxay aanay natixin si la mid ah kuwii ka horeeyay ayaa waxyaabihii doodda abuuray ee ku gadaamnaa waxa ka mid ahaa looxadihii ama waraaqihii magacyada labada dhinac ku qornaayeen ee hor dhigay wufuudda oo luqadda Ingiriiska iyo Faransiiska ku qornaa. hase yeeshee markii afka Faransiiska lagu qoray magaca Soomaaliya looguna xardhay sidii uu asalkiisii Faransiisku u yaqaanay ayaan magaca Soomaaliland loogu qorin looxadda markaasi wafdiga reer Soomaaliland la hor dhigay sidii uu asalkiisii Faransiisku u yaqaanay ama si ugu yeeri jiray, taasoo ay khubarada dhexdhexaadinta arrimaha siyaasadda iyo dawladuhu ku tilmaameen arrin si uuna u nusqaaminaysa ama saameyn ku yeelanaysa kalsoonida labada dhinac ee dhexdhexaadnimada ay Djibouti markaasi ka ahayd. waxaana doodda khubaradu odhanaysaa cadaalad samaynta dhinacyadu waxay ka bilaabmaysaa simidda meeqaamka iyo magacyada loogu soo casuumo ee ay raallida ka yihiin. sidaasi awgeed su'aasha ilaa iminka aan jawaabta loo hayn waxa ay tahay sababta ay dawladda Djibouti magacii Soomaaliya ee Aftalyaaniga ahaa Faransiiska ugu turjuntay magacii Somaliland ee Ingiriisiga ahaana Ingiriisidiisa ugu daysay. taasoo noqon karta khalad aan ku talagal ahayn ama faham la'aan taariikheed. si kastaba ha ahaatee marka la isku soo wada xooriyo arrimahani waxay noo muujinayaan barnaamijyadan aynu ka faa'iidaysanay in dalalka Somaliland iyo Soomaaliya aanay ahayn kuwo ay ka dhaxaysay sooyaal taariikheed oo muujinaya inay dawlad qura wada ahaayeen ama se maamul ka dhaxeeyay. waxa qura ee ay ku doodayaan Soomaaliduna ay tahay in midnimadu ku curatay israacii 1960kii kaasi oo marka xaqiiqdiisa la isku taagana ahaa mid ka fashilmay dhinaca Soomaaliya oo ay heshiiskii ugu horeeyay ama se waxyaabihii midnimadaasi lagu abuuri lahaa ay Soomaaliya ka baxday. iyadoo oo sidaasina arrinku yahay ayaa waxa aad moodaa in dawladaha caalamku ay markaasi iyaga laftoodu iska indhatirayaan ama si uun u inkirayaan qadiyadda dib u soo noqoshada xornimada Somaliland oo ah mid aan gorgortan iyo weliba murantoona lahayn, laakiinse dalka fashilmay ama se dawladda fashilantay ee Soomaaliya ay weli daba socoto. barnaamijkana daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynaa waxa soo diyaariyay isku soo dubariday ururka xoojinta qarannimada Somaliland. waxaan halkan idinka soo tabinaya anigoo Salmaan Cabdi Cali. tan iyo ismaqal arag dambe. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.